cashirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabka Excel sheet-ka loogu xiro password ama furo sir ah oo ku gaara qaabka aad u samaysan lahayd. Tusaale ahaan waxaad isticmaashaa computer public oo dadka dhexeeya ama laptop-kaaga lagula isticmaalaa oo dad kale ay ka qaataan. Marka waxaad rabtaa xogta aad ku kaydsato laptop-kaaga ama computer-ka dadka dhexeeya in aysan cid kale ka arag oo adi ay gaar ku ahaato. Sidaa daradeed waxaad u baahan tahay inaad u samaysato password inaad u samaysato ama number sir ah oo hadhowdii qofka isku daya inuu furo uu weydiin doono. Marka maanta waxaan baranaynaa qaabka aad ugu samaysan lahayd fure ku sir ah xogtaada ku kaydsan Excel sheet-ka. Waxaan ku bilaabaynaa tusaale ahaan halkan waxaan ku haysanaa xogtan waa cashir hore aynu soo bixinay. Cashirkan cashirkii ka horeeyay ayuu ahaa ma filayaa dabcan. Marka cashirkan oo kale waxaan doonaynaa inaan u samaysano furo gaara ama furo sireed inaan u samaysano si aan cid kale noo arag. Waxaan sameeynaa marka waxaan ka bilaabaynaa waxaan tegaynaa halkan file kadibna waxaan dooraynaa save as meesha ay ku qoran tahay. kadib waxay noo soo baxaysaa xogtan qaabkan oo kale waxaan ku dhifanaynaa halkan meesha ay ku qoran tahay more options kadibna magaca maaragtay aynu rabno inaan u bixinaynaa. tusaale ahaan waxaan u bixinayaa engineer Warsame oo kale. magaca markaan ula baxo waxaan misna dooranayaa meeshii aan dhigan lahaa. tusaale ahaan ma desktop baad dhiganaysaa ma documents baad dhiganaysaa. tusaale ahaan desktop-ka kale noo dhig. waxaynu sameynaynaa marka aan tegin halkan ay ku qoran tahay tools kadibna waxaynu dooranaynaa general options. waxay noo soo baxaysaa daaqadan yar. marka halkan wuxuu leeyahay waxaa gelisaa password geli ama fure sir gasho. tusaale ahaan hadda waxaan iska dhahaynaa 1 2 3 4 5 mar kale geli 1 2 3 4 5 labada meelood waxaa gelinaysaa passwordkii oo isku mid ah. kadib waxaa ku dhifanaysaa okay. kadib wuxuu ku leeyahay mar kale geli passwordka si aad hore u socoto. isla kii baa gelinaysaa 1 2 3 4 5. dabcan passwordka hadda aan gelinayno waa password aad u fudud. marka adiga laga rabaa mid ku gaara oo aan la fahmi karin inaad gashato. kana waa iska tusaale mar kale geli uu leeyahay 1 2 3 4 5 kadib waxaa ku dhifanaysaa okay. intaa kadib waxaad taabanaysaa meeshan ka qoran tahay save. warqadeena saas inuu save garaysan tahay. haddaan warqadan jarno oo meesha aan dhiganay aan soo furno wuxuuna weydiin doonaa password. su'aalaha hadda dabcan desktop-kan dhiganay magaca u bixinayna engineer Warsame ahaa waa kan halkan oo noo yaala. marka waxaan sameynaynaa waxaan isku dayaynaa inaan furno bal inuu passwordkina weydiiyo in kaleeto. dhag waa kan wuxuuna weydiiyey isla markii wuxuuna weydiiyey inaan passwordka gelino 1 2 3 4 5. mar kale geli uu leeyahay 1 2 3 4 5. oka automatically waa inoo soo baxay maaragtay waa inoo furantay warqadeena ama sheetkeeni. marka cashirkan intaasuu ku kooban yahay waa cashir gaaban laakiin muhiima. waxaan rajeynayaa wax ka faa'iideen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.